xaflad ay ku qalin jibinayeen 20 arday oo ah Dufcadii ugu horeysay oo ay soo saarto Jaamacada caalamiga ee BIU ayaa lagu qabtay magaalada Baydhabo. Cabdinaasir Musharraf ayaa ka qayb galay warbixintan ayuuna nooga diyaariyay. Jaamacada caalamiga ah ee Baydhabo ayaa soo saartay dufcadii koowaad ee ka qalin jabisay jaamacada. 20 arday oo 6 kamid ah yihiin dumar ayaa noqday dufcadii koowaad ee jaamacada BIU waxaana ay dhameysteen kuliyadaha beeraha iyo umulisada. Mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed, bahda waxbarashada, maamulka degmada iyo gobolka Bay iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa ka qayb galay xafladda qalin jabinta maalintooda farxadeed. Professor Abduqaadir Nuur Abu oo ah gudoomiyaha jaamacada BIU ayaa ugu horeyntii sharaxay dadaalka dheer ee jaamacada ay soo galisay in la soo saaro dufcada koowaad ee jaamacada. Tan ugu muhiimsan rabayna aan ka hadlo waxa way dhinaca waxbarashada. Jaamacada badan ayaa ku yaalan gobolka Bay, gaar ahaan magaalada Baydhabo. Insha Allah ayagana waxaan rajeynayaa maalmo qalin jabintooda saan inaan uga qayb galno ardadana inay oo niyad iska jibin ay qalin jabinta ma aha in waxbarashada ku dadaalaan. ardada badan waxay isdhahan hadaad qalin jabisay shaqo ma helaysaa. waxa way laba kuliyad inta ka baxday oo ah beeraha iyo caafimaadka. labadoodaba waxa way in la shaqaaleysiyo, hadii la shaqaaleysiyo wayna waxa way ayaga shaqo waxay ku shaqeynayaan waa la baray maanta. ardada kuliyada beeraha alxamdulillah waxay barteen macnaha mihnadaha badan oo technical agriculture-ki sida oo anaga waligeena waxa abuuri jirnay macnaha masago waa primary food, laakiin maanta alxamdulillah waxay barteen bariiska si loo abuuro gaar ahaan dhulkaanit oo roobka qamadigiina way barteen. intaas waxaan rajeynaynaa in ay tijaabiyaan. wasiirka beeraha waxaan ka codsanayaa in oo ardadanit oo howlgeliyo horumarkii oo beeraha iyo wax soo saarkii ardadan ay ku jiraan iyo ardada kala soo socdaan. marka in la dhiirigeliyo ayaan rajeynaynaa insha Allah. tan kale oo dhinaca caafimaadkana gaar ahaan qaybtii ugu muhiimsaneed ayaa maanta macnaha loo qalin jabinaysa qaybta midwifery oo umulisooyinka. bahda waxbarashada gobolka Bay iyo maamulka gobolka ayaa si wada jir ah u bogaadiyay maamulka jaamacada waxaana ay hambalyo iyo dardaaran ay u jeediyeen ardayda qalin jabinaysay. dadku ay sheegaan ma inuu waxbarashada faa'iido ma jira in faa'iido ogaateena labada kun hadirtay markaan oo hata iskoolkan galnay waxbarashada faa'iido sheeg kormaysin ogtin saasaratii aan barteen inta hadirtin madinta la hadir ma tumay bad ku faday inii oo professor kole mere PhD iyo master ka dar an raigas magab raiga ka me wa bachelor ka ta ini shaqayta madi shaqayta madas ku baad wal kale ka dar ko luwidi hadii ise don PhD holder na tan la shaqa san soo malazin tiga dadka shaqada qordo may fadaan la fresh ee leedeji kor oo bachelor qaba oo edeegsimo laakiin master in badan ma jirta helidii iskuulada dhigada jirta illa ay hadeen iskool seedan fadayaan laakiin wali insaana go'aan dir laakiin may go'aan ka dirteen in iskool seetan dhamaysateen dadkiisa dhamaysteen dadka madda oo la qiyaam anigii ka jaamacada in gudubno insaan go'aan dirteen jaamacada in gudubteen may ba hadalkii ka roogtana inii ku qalan jibida ma qalan bedelataan. agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed oo xafladda ka hadlay ayaa ballanqaad u sameeyay ardayda ka qalin jabisa kuliyadaha caafimaadka ee jaamacadaha Baydhabo. dadka ka badayna Baydhabo aynin badiyoy Baydhabo dadka ka badayna laakiin dadka habaahay wala han badayna han ku tabahayna adeegyo hawaayan may hawaayana kaalmadii iyo walaay markaasay yoon ka baahanaa insaas dartiye dadku may la raay wal baradan yoon may dhiirigeliyaan shaqo oo falaasan hadii la ay wasaaradda caafimaadka balan qaadaas laakiin deegaano kale iyo may la raayis runtii maalmo ku hor deegaan lama qof umulseelan ka baahanyi iyo may la raayis way sanaynayn dad umulus may la raay wal gordaas waana jeeyna wasaaradda caafimaadka wali ka amartay hay'adaha samfalka iyo hay'adaha may la raayis caafimaadka ka shaqeeyo isbitaalada sida gaarka leh. wasiiro ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo ka qayb galay xafladda qalin jabinta jaamacada BIU ayaa ugu dambeyntii ka hadlay xafladda waxaana ay hambalyo u direen ardayda iyo maamulka jaamacada waxaana hadallo dhiirigelin ay u jeediyeen ardayda qalin jabinaysay.
nagalayo barnaamijka iyo madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya oo ballan qaaday walaalaha kambeeshii wareegga jiray inuu si eedan fiiriyo doona dadka aqoon-yahanada gobolada koonfur galbeed Soomaaliya oo ka barday inuu sunnaanta kooban sii doona dhaaftii nacfi gobolada aan ku baahan dadku ku faa'iideysto ganacsatada iyo raytooy dadka kale ee koonfur galbeed Soomaaliya iyo haaladooda maamulkii hore aan ku tahay ولكن حمد إن أضويهنا أما دقيقة دراسية الشيء أما قاعدهم تبرم تغيير الكوكواني هذا من هنا بنا كاتمين يصير بقول سيدنا بإذن الله تعالى أضويهنا أمر مثلا قاعد تلا أمر دراسية يوم توجعها يجان كل local NGO international oo filliga beeraha ka shaqeeya kullina aadin kula garab istaagayo inaad la shaqeysaan kuna waa inaad ku dabar adeegtaan beeraha magaalooyinka kuma yaalaan daa ogtiin beer markii laga hadlaayo waa nin walba inuu aado filliga oo tago ama degmooyinka u dhow dadkaan soo qaxay ee magaalooyinka jooga IDPska waxa ugu badan ay kasoo tageen waa beeraha waayo runtii lamada tun iyo tumika u tijaabay ballankaleerow Steve Jobs oo Macintosh shaqeeyay kambanigaas lanka embedded system asari ya may bak khudbaya isla amal xaflada qalanjibin aan sununay Harvard University markaas ardayda u soo bandhigi kariyo may baleeya ardayda hiraabti markii oo ka hayaan iskoolka jeedan ama lacanaanado waalidka ka qayliyo dufcadan ayaa noqonaysa dufcadii koowaad ee jaamacada BIU ay soo saarto waxaana jaamacadan ay ka mid tahay jaamacadaha ku yaala Baydhabo waxaana wax ku barta ardayda ka soo baxda dugsiyada sare ee ku yaala magaalada Baydhabo. Cabdinaasir Musharraf, JTV, Baydhabo.